komishinka xuquuqul insaanka ee Somaliland ayaa xafiis cusub ka furtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Munaasabad kooban oo xariga looga jiray xafiiska ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sool, maayarka degmada Laascaanood. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay maayarka degmada Laascaanood. Waxaana la joogaa gudoomiye ku-xigeenkii ururka xuquuqul insaanka Jamhuuriyadda Somaliland Waris Abshir Xaashi Diiriye iyo agaasimayaal ka tirsan hay'adda xuquuqul insaanka qaranka. ujeedada socdaalka u yimaadeen magaalada Laascaanood waxa weeye kormeerkoodii 3 biloodka ahaa ee xaaladda ay ku hurgalayeen guud ahaan gobolka Sool inay xaaladda xuquuqul insaanku halkay marayso haday tahay xabsiyada booliska maxkamadaha caruurta haweenka dadka nugul oo dhan inay hawlahooda ogaadaan ay u socdeen qodobka labaad u socday waxay ahayd in halkan laga furo xafiiskii xuquuqul insaanka gobolka Sool oo maanta xaruntan quruxda badan laga furayo waan ugu hambalyeynaa gudoomiye ku-xigeenka hay'adda xuquuqul insaanka iyo gudoomiyahaba iyo dhammaan madaxda hay'adda xuquuqul insaanka. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ku-xigeenka komishinka xuquuqul insaanka Somaliland Waris Abshir Xaashi Diiriye iyo agaasimaha waaxda kormeerka iyo wacyigelinta Cabdilaahi Maxamed Bile. maanta ay tahay bishu 16 bishii 7 2019 waxaanu halkan ka furnay xafiiskii ugu horeeyay ee gobolada laga furo gobolka Sool ayaanu ka furnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan halkan ugu mahadnaqayaa oo naga caawiyay oo muxuu xafiiska furay maayarka iyo barasaabka iyo xogayaha dawladda hoose oo noo fududeeyay sidii uu noogu furmi lahaa xafiiskaas aad baan ugu mahadnaqayaa. gudoomiye ku-xigeenka komishinka ayaa idin dhameeyay ujeedooyinkan halkan u joognay ilaa maanta ilaa xalay runtii sida xogayaha dawladda hoose maayarka iyo barasaabka xafiiskana waa halkan iyo doorka ka qaateen gudoomiyaha sheegay runtii waxaan la ilaawi karin oo iyaduna mudnaanteeda inaanu halkan ku xusno xafiiskan halkan laga siiyay waxa namarti gelisay oo nagu soo dhaweysay intaanu xafiis rasmi ah ku yeelan doono komishinka wasaaradda deegaanka hawshaana waxa runtii aad u fududeeyay isuduwaha u jooga wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga wadana jaamac oo runtii isaguna qayb laxad la ka qaatay aad baan ugu mahadnaqaynaa xafiiska maanta la furay muhiimaddu waxay tahay waxay tusaysaa komishinka xuquuqul insaanka qaranku isagoo muddo jiray iminka dhowr iyo 10 sano ah xafiiskii ugu horeeyay gobolada Somaliland ka furto hargeysa uu xafiiskiisa ku wadaha xafiiskii labaad oo Somaliland ku yeesho waxa noqday gobolka Sool. ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire oo ka warbixiyay muhiimadda uu xafiiskan u leeyahay gobolka. saako kulay waa maalin weyn farxad bayna tahay bariyahan waxa la isku haystay hor socodka iyo horumarka ayaynu ku tirtamin marka guul weyn baa tahay gobolka Sool soo yeetay in maalin walba oo 2019 sanadkan inta noo bilowday aan maalin mashruuc gacanta ka jaran oo maalin walba xafiis xarig ka jaran oo wax weyn aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa komishinka qaranka oo runtii xuquuqul insaanka oo xafiis Laascaanood ka furtay arintaasi dareen weyn bay nagu dhalinaysaa runtii muhiimad weyn bayna u leedahay deegaankan gobolkani waa gobol duruufo badan kaga duwan gobolada kale ee Jamhuuriyadda Somaliland isla markaa waa gobol xuduud ku yaala oo federaalka Soomaaliya xuduud la leh wuxuu u baahan yahay runtii in xuquuqda la sugo muhaajiriin baa inta marta oo human traffic waa ugu badan yahay xaggan Soomaaliya dad baa naga soo gala xaggan Itoobiya dad baa ka yimaada wadamo badan oo jaara ayuu diris leeyahay gobolka sida daraadeed in xuquuqul insaanku uu ku yeesho xafiis way ka fiicantahay ka faa'iido badan tahay meel walba waan runtii waan uga mahadcelinayaa xuquuqul insaanka inuu noqdo xafiiska koobaad ee deegaanada laga furo runtii waxaan kala aad ugu faraxsanahay mas'uulka cusub ee loo dhiibay Xasan Diire oo aad u qaano waa nin markii hore xuquuqul insaanka ka shaqeyn jiray oo hawsha dhalinyarada ku hawlaneed ee magaalada dadka wacyigelin jiray ugu mahadcelinayaa wasaaradda deegaanka isuduwaheeda iyo wasiirkaba runtii ballanqaadkii uu madaxweynuhu fuliyay uu yiri Laascaanood waxay noqon doontaa mid gobolada ka horeysa maanta waynu aragnaa maalin walba mashruuc baynu dhaxdhiganaa inagana wafdidan ka socotay komishinka xuquuqul insaanka Somaliland ayaa kormeeray xarumaha dawladda sida saldhigyada maxkamadaha iyo xarunta maamulka gobolka Sool. Cabdi Fataax Maxamed, telefishinka SBC Laascaanood.